النبي صلوا على 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 النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله وإن سلام دمانتين مeel kasta oo adduunka aad ka joogtaan. dhammaantiin waxaan idin leeyahay caafimaad iyo barwaaqo ku noolaada inta xanuunsan Allah subxaanahu wa tacaala caza wajalla ha caafiyo. waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin maasha Allah. Ani waa caafimaad qaba alxamdulilah. nabad iyo barwaaqo iyo nimcaan kusoo noqday. idinkan waxaan idinka rajeynayaa sidoo kale inaad tihiin waa walaashiin Mulki Xasan Maxamed oo dib idinkugu soo noqotay iyadoo caafimaad qabto. idinkan waxaan idinka rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta xanuunsan caafimaad ballaaran alla soo koob garan siiyo. inta caafimaad qabtin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u ziyaadiyo. dhammaan qof kastoo dhibaataysan khayr Allah ugu bedelo insha Allah. ducada waa la aqbalayaa meel un bay kusoo leexanaysaa insha Allah. waxaa laga yaabaa ducada aad dirsatay in shar kugu soo socoto lagaaga celiyo. marka insha Allah dhammaanteen kuwa samra Allah naga dhigo. maasha Allah maanta waxaan idin wadaa axbaabi fillah hadalka waa idinku dheereeyay. waxaan idin wadaa gabay aad u qurux badan. gabaygaas oo aan ka qiirooday gaalkii xumaa ee nabigeena sallallahu calayhi wasallam caayay. nabigeena caay ma lahan, wax lagu caayana ma lahan. wuu ammaanay yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaana laga ammaanay. qofna waxaa ugu khayr badan qofkii Allah subxaanahu wa tacaala caza wajalla agtiisa laga ammaanay. nabigeena wuu ammaanay Allah subxaanahu wa tacaala caza wajalla ayaana ammaanay. ammaanna wuu ka dhan yahay. maasha Allah waxaa la rabaa marka diintaada lasoo afaar gashto ama lagu soo galo inaa hadashid sideedaba isagoo ammaan nabiga calayhi salaatu wasalaam aa ognahay haddana difaaceena. maasha Allah waxaan intaan ku maqnaa gabaygan ayuu ahaa. gabaygan ayaana kasoo diyaariyey. dhammaan axbaabi fillah waxaan idinka codsanayaa inaad sii sheer gareysaan. waana ku mahadsantihiin sida wacan ee wanaagsan aad ii dhiirigelisaan garabkaygana aa u taagantihiin. Allah subxaanahu wa tacaala caza wajalla waxaan ka baryayaa inuusan fidneenin, uusan gaalnimo noo celinin, kufri gadaal noogu celinin. ilaahay subxaanahu wa tacaala hana sugo, qalbiyadana ha sugo. kuwa qalbiyada ay sugan yihiin Allah subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo. kuwa u qiirooda diintooda dartoodana Allah naga dhigo. markay sheekada diinteena soo gaartana kuwa aad ugu xumaado aad ugu ciilooda Allah naga dhigo subxaanahu wa tacaala. kuwa diintooda difaaca Ilaahay subxaanahu wa tacaala caza wajalla ha naga dhigo. walaalahayga qaaliga ah gabaygan anaa iska leh, anaa soo diyaariyey. aniga Mulki Xasan ahaa iska leh gabaygan. insha Allah fadlan haddii aad ka heshay gabaygan sii sheer garee lala wadaag asxaabtaada si ay usii sheer gareeyaan dadka badanna ay usii gaaro. waana ku mahadsantihiin dhammaantiina. waxaan idin leeyahay we love you. rasuulkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam. nasiib daradan jirtiyo midkii nabar kugu suriyo midkii ku haleeli waa yuhuudii maalinka iyo kuwa maanta jiro ilaa waa niman quraa. adduunka oo nuurka jirin nal baa tahaye iftiin ilaas noo soo baxee. adduunka oo nabad ka jirin habluhu hogga loo qodaayo. Allah kugu soo dejiyey inay cizo leeyihiin. nabigii nuurkii iftiinka lahaayow sallallahu calayhi wasallam. nasiib darradeydii inaan nuurkaaga arag. naxdintii i hayse iyo nabarka igu taaganaa waxaa farxad igu hogiyey. nabarka ay geysadeen adduunka hadday ku helin naartii jahannamo iyo saciire inay sugayso.